munaasabad si heersaraa loo soo agaasimay ayaa ka qabsoontay guriga martida ee qaryaandhoodaan waxaana munaasabadan loogu talagalay qurbajoogta u dhalatay deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ku sugan gudaha dalkan Itoobiya gaar ahaan deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana munaasabadan mid lamida sidoo kale ka qabsoontay shanta qaaradood ee dacalada dunida oo ay soo agaasimeen jaaliyadaha deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ku kala sugan daafaha dunida waxaana munaasabadan quruxda badan ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sarreeyay deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ugu horeeyo madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar afayeenka baarlamaanka deegaanka mudane Maxamed Rashiid Isaaq madaxweyne ku-xigeenka ahna wasiirka xafiiska beeraha iyo horumarinta kheyraadka dabiiciga Amru Su'aad Axmed Faarax golaha kaabineetka wasiirada iyo dhammaan hogaaminta gobolada maamul magaalooyinka iyo degmooyinka deegaanka iyo qurbajoogta u dhalatay deegaanka waxaana munaasabadan sida heerka sare loo soo agaasimay ee loogu talagalay qurbajoogta u dhalatay deegaanka Soomaalida Itoobiya bilic gaar ah u siyeelayay kooxaha fanka iyo dhaqanka ee deegaanka oo ku soo bandhigayay dhaantooyin iyo heeso la wada dhacay waxaana ugu horeyn munaasabadan ka hadlay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar oo dib u milicsaday sooyaalkii taariikheed ee deegaanka iyo muuqaalka isbeddelka horumarineed ee waqti xaadirkan deegaanka Soomaalida Itoobiya ku tallaabsaday isagoo madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar tilmaamay in qurbajoogta u dhalatay deegaanka Soomaalida Itoobiya ay kaalin mug leh ku lahaayeen horumarka deegaanka ku tallaabsaday waqti xaadirkan deegaanka Soomaalida shalay toole sidoo ahaa waa la garan karaa shalay sidoo ahaa maantana halku gaarsiisan yahay muddo yar waa la garan karaa taa iskamayna imanin waxay ku timid go'aan iyo ficil la fuliyay wax qabad iyo qorshe la qaatay ayay ku timid ay qurbajoogtuna ka ahayd waxa weeyaan kaalin libaax run ahaantii markii ugu horeysay ee dalka dibadiisa aadnay meeshii ugu horeysay tagnay waxay ahayd Stockholm bay ahayd Sweden kadib waxa weeyaan Denmark iyo London bay ahayd maalmahaas wixii yaalay dibadda iyo maanta waxa yaala farq weyn baa u dhaxeeya isbedel weyn baa ka jira oo ku yimid ficil iyo itusoo taabsi run ahaantii waxa weeyaan deegaanka Soomaalida marka la eego xilligaas iyada dhan kasta uu ka gubanayay shacabka deegaanka Soomaalida dhibaato ku sugnaa waxa weeyaan waliba gaar ahaan shacabka oo labada dhinacba dhibaato maxaan ku raay ka soo gaaraysa marka xaqiiqada laga hadlo maamulada oo dulsaar ah oo aan isku kalsooni darro oo aragti xumo iyo nin jeclaysi salka ku haysa ayay ahayd laakiin dadku waxay u baahnaayeen biyo u baahnaayeen horumar bay u baahnaayeen magaalada Jijjiga ma horumari kartay ilaa waxa weeyaan maamulkeeda loo madax baneeyo oo noqoto ismaamul marka heshiis la geli kara magaalooyinka kale ee mataanaha ay la tahay ee caalamka waxa weeye maxaan ku raaa caalamkana la soo gali karta dalka gudihiisa la gali karta dibaddana la soo gali karta maamul markaas waxa weeye dawladda kamid oo ismaamul la yiraahdo oo waxa weeye taqaanay administration kiisu madax banaan yahay inay noqoto ayun bay ku horumari kartay taa marka haday noqoto guddi fulin iyo golo dhaxa aragti qabiil baa lagu eegay magaalada Jijjiga waxa ay degmada X iyo degmo Y iyo hadaad aragto degmooyinka aad garanaysaan ama degmooyinka waaweyn iyo magaalada Jijjiga waxa laga yaabaa isku baajadiin ama magaalo kale ka baajid doonta marka waana caasimadii marka caasimada in Jijjiga ay la tartanto waxa weeye maxaan ku rahaa caasimadaha kale ee dalka sida waxa weeyaan Awaaso kale Maqale kale Bahardar oo kale caasimadaha dalka in la tartanto ama ay ku caalamka la tartanto waxa baan dadka hogaaminayeen aragti qabiil ay ka baxaan taana waxa weeyaan qaabdhismeedka in hoos loo dhaadhiciyo oo la gaarsiiyo dadka adeega bulshada waxa baan tahay qaabdhismeedka in hoos u dhaadhiciyo ilaa heer tuulo inuu jiro taana waxaan ku raaxay xukuumaddu ay ku guuleysatay madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar ayaa xusay in xukuumadda deegaanku ay muhiimadda siisay sidii ay u kala horeysiin lahayd baahiyaha koobaad ee bulshada waqti xaadirkana xukuumaddu ay xariga ka jarayso mashaariicaha horumarineed oo ay kamid yihiin mashaariicaha horumarineed ee dhinaca biyaha haddaan si kooban u soo dhigo waxa weeyaan dhibaatooyinka la kala horeysiiyay 1 2 3 priority-ga koobaad ka labaad dhibaatada ugu weyn muxuu yahay ku xigta muxuu yahay ay noqonaysaa dhibaatada koobaad waxa ay biyaha biilaan marar badan waa ku celiyaa Jijjiga ninku markuu waxa weeye waxaan ku raaa bari uga baxo bari Jijjiga magaalada Jijjiga ceelkii uu ka qoday xaliislaasi iyo ceelka dhargigu uu weerarkii Soomaaliya u qoday suu waxa weeye maxaan ku raayay
aragti shacab kuma qodin laakiin wuxuu ku qoday Soomaaliya si ugu duulo ayuu galaadiyahay ceelka maxaan ku rahaa ee la qoday iyo ceelka jijiga laga qoday labadaas laba dhaxayni marka qofku markuu jijiga ka baxo uu galaadi tagay waa 500 kilomitir wax ceel ka qodana ma jiro hadduu waxa way roobku deerto ay xumaato Google ku daro waa bas waa lagu dhimanay laakiin maanta maxaa taala maanta waxaan bari hadii ilaahay xariga ka jaraynaa xariga waxa laga jarayaa biyaha laga qaaday waxa weeye maxaan ku raraa birqod waxa weeyaan waxay ku dhacayaan reservoir waxa weeyaan 300 metr cube ay ku dhici bunagaday u leexiyeen oo ilaa hadda cabaysa kadib 500 ku dhacaya ka 500 gravity uu taagan yahay meel sare ruwaaliyo uu ka tagaya cadaadiyo marka baxana xaweyne iyo waxa weeyaan halkaas maxaan ku ramaraya digbu maraya digbu ka bixi farmadow ilaa iyo waxa weeyaan wax maraya maxaan ku raaya weysha mustariq ilaa marsil ilaa iyo qoriyo si soconaya mashruucaas riboodkooda maanta markaan qaadanayna intaas oo meeloodba waa laga cabiyay si tayara lagu cabiyo waliba lagu cabiyay mashruuca bariba xariga laga jaradiilayna reebiga iyo dadkuna aad bay ugu faraxsanayeen runaantii way adag tahay in waxa weeye 160 kilomitir inta la qodo dhulka tuubo la geliyo reservoir loo sameeyo nidaam loo sameeyo 160 kilomitir ama 165 kilomitir mashruuc dhan in meel kasta biyo la geliyo aad bay ma taqaanay yani waa tii shalay bay tani ku xigtaa walaal darato la ceelka ilaa la qoday oo xariga ka soo jaray hadda dilay maanta laga cabaya danood ba laga cabaya oo waxa way maxaa ku raabiye laga sameeyay laga qoday gaashamo oo adeegyada shalay dhibaatadii ka jirtay biilaanta ama banka xawo meeshii aan ku ilmeynay runaantii ee rafaadka badan ee halka dadkii cidda aragtay maalinta ay aad u dhibaatooyisay halkaas ama bankaas biyo la geliyo yaa naga go'an waana la gelin doonaa hadii la yiraahdo abaartii hadday soo noqoto mar labaad inay dadka wax yeelin iyo noqonaysa hadii la yiraahdo marka aan way si kasta waa haato dhagax dhiga maxaan ku raraa banka xawaan u socona oo la soo dhagax dhiga hadii la yiraahdo ceel badan oo la qoday baa xariga laga jaray waxaa noo soo socda ilaa 15 mashiin oo waaweyn oo dalka dibadiisa laga soo gaday oo biyaha maxaan ku rahaa khadaad macaaniinaya oo meelaha maxaan ku raraa ceelasha Yurub lagu sameeyay warshado Yurub sameeyay ceelal badan oo markii la qoday naga dhanaanaaday baa jira laakiin mashruucaas ka saaraya waxa weeyaan ka saaraya maxaan ku raraa milixdana gooni uu saaraya isagoo xareedana gooni uu mashaariicdaas na hadda way soo socdaan ceelal badan baa lagu xidhaa dilayna xaggaasan xoog saarnay horumarkaas shirka iyo biyaha iyo xoog la saaray dilayna haddana saboolnimada la dagaalamaya oo waxaan tirtiraynaa dilayna sidii u baloo tirtiray haddana waxaan ka tirtiraynaa deegaanka inaan lagu arkin cid waxa weeye deegaanka u dhalatay oo gaajoonaysa aan lagu arkin dadka la gaarsiiyo wadamada dhaqaalahooda dhexaadkiisa taas laga shaqeey deegaanka Soomaalidana hanti badan baa taala hantida hadii la sarifo oo waxa weeye sayta loo isticmaalo deegaanka Soomaalida cid iska daa inuu waxa weeye cid ku nool ay gaajoote adduunka ay caawinayaan wax la wada xaqaa ugu dambeyntiina madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar ayaa qurbo joogta u dhalatay deegaanka Soomaaliya Ethiopia ku kula sugan daafaha dunida kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan aqoonta wadanada ay joogaan adkeeyana dhaqankooda wanaagsan waxaan leeyahay ninka dibadda joogay gudaha joogaba waxa weeyaan inuu qofka horta marka hore isagu development isku sameeyo naftiisa inuu horumariyo soo dadka horumariyo inuu isagu wax barto dadkana subaxan ku raay wax ugu taro xirfad in la barto waa muhiim dadka dibadda jooga waqtiga ka faa'iideystaan ma leeyahay waqtiga iska khasaarin wax barashada aad u bartaan xirfadaha bartaan waxa weeyaan kadibna khibrad ay soo helaan wadakooda soo galiyaan taasay maxaan ku raahaa ay ku aqoon tahay kale arinta ugu muhiimsan waxa weeyaan dhaqanka qurbo joogta dhaqanka ay ilaaliso waxa weeyaan Soomaalidu dhaqan wanaagsan bay leedahay dhan kastaba oo in la develop gareeyo baahan marka dhaqankan leenahay la horumariyo qofku markuu waxa weeye dhaqankiisa ku faano dadka kale ku ixtiraami laakiin hadda dhaqankaaga ka faanto cidna kuma ixtiraamayso waa dhaqankeena aan ku faanaa Soomaaliyeedna aan ku faanaa deegaankeena iyo Itoobiyaanimadena aan ku faanaa waxa weeyaan dhaqanka wanaagsan ee Soomaalidu leedahay in la horumariyo loo baahan yahay
ومركز تانهر وهي قومية بدل إثيوبيا نحفر سنة أو مركز شغلنا لكن كنا وين دي كجرنا مركز تاو لكن كالصومالي مركز شغل لكن في عم بلادي لكن كواينا نسندك يا لبيان سعد اللجوء برتويا لكن كهورو مرسا هذه البلد سنتين dhanka kale gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaaliya Ethiopia ee jaaliyada Melbourne ee wadanka Australia Cabdiqani Faarax oo ku hadlayay magaca jaaliyadaha qurbo joogta ee deegaanka ayaa isaguna ka hadlay munaasabadan dawladda maanta jirta dawladda Soomaalida Ethiopia waqti gaaban baynu qeyrkeen ku dhaafnay taana waxa weeye shaqsi fikirkiis iyo hogaamintiis iyo bulshadu ku diirsataa ku nooshahay ku horumarta waxaan amaanayaa xukuumadda maanta dalka ka jirta wanaageeda horumarka maanta ka jira dalka wanaagiisa walaalayaal marka waxaan idin leeyahay dalka hal la yimaado hal maal gashado dawladda hal garab istaago dadkeena aan garab istaagno deegaankeena aan garab istaagno jaaliyada Melbourne ee wadanka Australia ayaa xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaaliya Ethiopia ugu deeqay 1 milyan oo bir oo uu waday gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaaliya Ethiopia ee jaaliyada Melbourne mudan Cabdiqani Faarax oo gudoonsiyay madaxa arrimaha siyaasadda ee xarunta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaaliya Ethiopia mudan Umar Maxamuud sidoo kale jaaliyadaha u dhashay deegaanka Soomaaliya Ethiopia ee ku kula sugan daafaha dunida oo iyaguna ku xusayay goobaha ay joogaan munaasabad tan lamida ayaa kulankan kaga qayb qaatay call conference oo ay kula wadaagayeen farxadda munaasabadan gudoomiyaha taaniyada Beelaluk Dr. Abdullaahi Cabdi Maxamuud waxaan halkan idinka soo jeedinaynaa hambalyo aad iyo aad u qaali ah waxaan halkan idinka soo jeedinaynaa ammaan aad iyo aad u qaali ah waxaanu idin sheegaynaa oo aan u sheegaynaa dawladda guddiga golaha fulinta xisbiga oo uu ka horeeyo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar xafidahullah inaanu garab taagannahay mar walba inaanu garab taagannahay hawsha ay hayaan inaanu garab taagannahay siyaasadooda waxaanu leenahay hawsha ku haytaan dadweynaha DDSI waanu idinku hambalyeynaa mabda'a aad haysaanna waanu idinku ammaanaynaa waxqabadkiinaanu idinku ammaanaynaa kartidiinaanu idinku ammaanaynaa siyaasadda iyo horsocodka wanaagsan baanu idinku ammaanaynaa fahamkaanu idinku ammaanaynaa waxqabadkaanu idinku ammaanaynaa u danaynta shacabka aad u danaynaysaan baanu idinku ammaanaynaa xiriirka wanaagsan ee qof walba oo DDSI la leeyihiin baanu idinku ammaanaynaa waxaanu ballan qaadaynaa tallaabo kastoo qaadaan inaanu idin garab taagannahay waxaanu ballan qaadaynaa waxqabad kasta oo samaysaan inaanu isla qabanayno waxaan nahay qodobjoogta DDSI ee North America halkan aanu ku dhannahay odayaal dhalinyaro oo aan diyaarnahay inooba inaan la garab istaagno dowladdeegaanka Soomaalida Ethiopia waxaanu ku bayaanaynaa hogaamiyeena Cabdi Maxamuud Cumar waxaanu qaadanaynaa talada madaxweynuhu soo jeediyo waxaanu macnaha ku hawlgelaynaa talo kasta oo xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Ethiopia uu wajahayo ayaanu diyaarnahay haddaan nahay qurbajoogta DDSI ee ku dhaqan North America gabagabadii munaasabadan ayaa qurbo joogtii u dhalatay deegaanka Soomaaliya Ethiopia la gudoonsiyay shahaado sharafyo heer sare ah kaalintii libaaxa lahayd ay ka qaateen horumarka iyo nabadgelyada deegaanka xukuumadda deegaanka Soomaaliya Ethiopia ayaa dadaal xoogan ka soo hoysay kor u qaadid xiriirka dadweynaha iyadoo marar badan mas'uuliyiinta ugu sarreysa ee deegaanka Soomaaliya Ethiopia ay socdaal ku galay bixiyeen si ay kulana ula soo qaataan qurbo joogta u dhalatay deegaanka Soomaaliya Ethiopia uguna dhiirigeliyaan sida uga qayb qaadan lahaayeen horumarka deegaankooda baad ku tahay arada ruuxaanu galan idafku kaga taga waxaad si dhigata iyo dhulkaaga